بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن داود اللمادين بالكن وتلفزيون كعالمي هون كيبل تي في حرمتي مقالة هرقيسة داود الهانتين به كسور دواده ورئيسي أن الله يلني ماريها وكالة بيها هرقيسة إبراهيم سياد يونس وعاو مرتين وقوة برنامج كوبان ويسوى دياريين حفيز كحليل كمشاريع ذا صندوق هرمرينتا سومالان SDF وزارة قرشين تقرن كسومالان وحانا برنامج كان مكجهد لدونا xaaladaha kala duwan ee biyo la'aanta ee Soomaaliland iyo mashaariic maalmihii ugu dambeeyay biyaha lagu balaadhinayo caasimadda Hargeysa oo la filayo in dhawaan laga hirgeliyo guud ahaanba caasimadda Hargeysa waxa mashruucan biyo gelinta iska kaashanaya midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland ee SDF waxaana bal su'aalaad kala duwan oo la xiriira mashruucaasi iyo biyo balaadhinta baan wax badan ka weydiin doonaa maarayaha wakaalada biyaha ee Hargeysa Ibrahim Siyaad Yoonis oo markale uga mahadnaqayo sidoo waqtigiisa qaaliga oo noogu horay in nagala qayb qaato barnaamijka balse marka hore intaan guda galin su'aalahaas aan weydiinayo maarayaha bal marka hore aynu wada daawano filim yar oo kooban oo bal ka turjumaya ama faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya mashruucan biyo balaadhinta ee Hargeysa oo kaashanaysa hay'adda UN Habitat waxay fulinaysaa mashruuc lagu balaadhinayo biyaha caasimadda Hargeysa kaas oo si wada jira ay u maalgelinayaan midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan SDF mashruucani waxa si rasmi ah u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo 20 bishii September ee sanadkii 2015 hawsha biyo balaadhinta ayaa haatan si habsami ah u socota waxaana haatan dhamaaday qodida 4 ceel biyood oo cusub kuwaas oo laga qoday deegaanka Horahaadley dhanka kale waxa socota hawsha dhigida beeb cusub kuwaas oo biyaha u kala gudbinaya deegaanka ceelasha Geedeeble ilaa barkada kaydka magaalada Hargeysa sidoo kale waxa ay socota dhismaha saldhig biyood cusub oo laga dhisayo deegaanka Geedeeble si kor loogu qaado gudbinta biyaha dhanka kale mashruucu waxa uu 7 kaalmood ka furaya deegaamada ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee loo yaqaan xaafadaha Ayaxa ee magaalada Hargeysa dhamaadka mashruuca waxa dadweynaha caasimadda Hargeysa la rajaynayaa inay heli doonaan ilaa 20 milyan oo litir oo biyo nadiif ah halka markii hore ay heli jireen ilaa 9 milyan oo filimka yar kooban waxa uu ka turjumayay mashruucan biyo balaadhinta ee caasimadda Hargeysa waxaana barnaamijkan soo diyaariyay xafiiska xiriirka mashaariicda ee sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa maarayaha wakaalada biyaha Ibrahim Siyaad Yoonis bal marka hore inagu mahadnaqo si waqtigiisa qaaliga ugu horay inagu qayb qaato barnaamijkan maarayaha ku soo dhaw Hon Cable TV iyo barnaamijkan baa aad bad mahadsantiin Hon Cable TV iyo guraase wadi mahadnaqaya aad baan adiga kaaga mahadnaqaynaa si waqtiga qaaliga noogu hortay mar kale dadweynaha daawanaya waxaan ayagana aan xasuusinayaa inay khadka telefoonka si toos ah uga qayb qaadan karaan barnaamijkan intaan ku guda jirno su'aalaha wixii ahyaana ay weydiin karaan maarayaha wakaalada biyaha Hargeysa oo caawa Hon Cable TV fursad u siiyay in qof kasta wixii su'aalaya halkaas uu ka weydiin karo iyo wixii ku saabsan mashruuca biyo balaadhinta ee madmadow badan kaga jiro in caawa si toos ah halkan laga jawaabi doono maraya marka hore aan ku horeyno waa sidii xaaladda biyo la'aanta Hargeysa marka hore faahfaahin dheeraad aan ka bixino بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mahadnaq marka hore waxaan mahadnaqayaa Hon Cable TV iyo communication hubka ama xafiiska xiriirka mashaariicda ee wasaaradda qorsheynta qaranka ee SDF Hargeysa waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la wada soconaa waa magaalooyinka ugu koritaanka badan leh Afrika 20 sano ama 20 sano aan qaranka ahayn waxay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ka taagnaa biyo la'aan taasoo u sababtay systemka biyaha ee la dhisay oo u dhisay Chinese-ku phase-kiisa koowaad 7-aadkii phase-kii labaadna 8-aadkii waxa caasimadda waqtiga ku noolaa dad yar oo aad u kooban oo marka ugu badan lagu sheego 180 kun oo qof inay lagu tala galay iminka waxaynu wada ogsoonahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noqotay magaalo madaxda caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedu aad bay u koreen 25 sano aad bay nabad bay noqotay dad fara badan baa soo degay diaspora ku soo noqday goboladii dhan baa laga yimid dad qiyaas ahaan lagu qiyaaso ilaa 1 milyan iyo 200 kun oo qof baa ku nool tira rasmi ah laga hayo laakiin qiyaas intaas lagu qiyaasaa systemkii biyaha ee Chinese ku dhisay 7-aadkii 8-aadkiina waa sidiisii reer Hargeysa walaal maaraya qof khadkeena ugu jira hello walaal magaca ku bilaabaya maarayaha wakaalada biyaha ayaa hortaada fadhiya maxaa su'aalo qabtaad weydiinaysaa adigoo iska gaabinaya muraayada oo kaliya telefoonka la soconaya
si fiican baan ku maqlayaa si fiican baan ku maqlayaa Maria waxaan weydiinayaa nooca dadka hargeysa kee lagu maaweeliyo marka ka maayo xushada adiga sameeyo biyo balaarin wadaan wax waxba jirba way su-aasha waa lagaga jawaabaya adigoo aada u raaliya بسم الله الرحمن الرحيم والله ناصر horta waad mahadsan tahay de waxaan jeclaan lahaa inaad hargeysa joogto waayo hargeysa qofka dhibaatada hargeysa jooga wuu og yahay biyo-la'aanta hargeysa ka taagan hadalkaygina waan ku daray hargeysa waa biyo laadahay dhowr iyo 20 sano way biyo la'ayd mashaariicda biyaha marka la fulinayo way ka duwan yihiin mashaariicda kale mashaariicdan ka shaqeynaa maaha mashaariic hadala waa mashaariic rasmiga waad arkayso clipkeera waa daawanaysay oo mashruuc aad u ballaaran oo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda muddo uu socday oo mashruuc farsamadna waqti uu qaataa dawladdan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha ka yahay waxay waqti badan gelisay in dadweynaha caasimadda ku nool biyo ku filan oo nadiif ah oo la isku haleyn karo ay siiso taasna waa dhabadeedii baan ku taaganahay ilaahayna waxaan ku baryaynaa inuu nagu guuleeyo mashaariicdaasna waa mashaariic aynu arki doono insha Allah intifaaceeda qof kasta oo reer Hargeysa mustaqbalka dhow taaban doono waad mahadsantahay qof kale ku jira sida walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya maxaa su'aalaad qabtaa maarayahaad weydiinaysaa magacayga waa Axmed Ali Xuseen waxaan ka soomayaa xabadjigeer aye waxaan jecelahay inaan weydiiyo maarayaha kala gudbiya goorma mashruucan soo gabagabeynaya waa su'aal fiican walaal Axmed waad mahadsan tahay mashruucu sidaan horeba u sheegay waa mashruuc farsamo deadline buu leeyahay mustaqbalka ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa mashruuca gabagabadiisa kulley waxa waa iman karaan oo waxaan ognahay de ilaahay baa gacanta wax walba ku haya inagu qorshaynu samaysnay qorshaha ku talagalkiisu wuxuu yahay sanadkan imika ku jirno bartankiisa 2016 dabeeqadiisa ama bisha koobaad ee sanadka 2017 mashruucaas dhamaaday phase-kiisa koobaad oo ah biyo soo saarka phase-ka labaad oo ah biyo qaybinta insha Allah isaguna degdeg dhawaan u bilaabmo waqtina ka dambeeya ka laakiin magaalada Hargeysa xilliga biyaha rasmiga soo gaarayaan waa 2016 dabeeqadiisa bisha koobaad 2017 madaxiisa insha Allah ay xaaladda biyo-la'aanta ku jirnaa walaal Hargeysa sidaan hore u sheegnay way biyo laadahay waxaana ugu wacan biyo-la'aanta waxa kala batay koritaankeedii si u korisay iyadoo waxba infrastructure waxa laga bedelin anagu xafiiska waxaanu joognay intii xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo timid waxaanu nimid xafiiska ama wakaaladda biyaha Hargeysa iyadoo habeeraatay wax mashaariic ka socon iyadoo wixii Chinese-ku inuu uga tagay la dul fadhiyo waxaan tacab badan ilaa madaxweyne ilaa maaraya aan isku geynay in loo doono deeqo oo ay inagu inognahay awoodina dawladdeena intay tilaab tahay mashaariicda biyuhuna way ka duwan yihiin mashaariicda kale waxay u baahan yihiin lacag aad u fara badan ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan mashaariicdii wax badan ka inooga hirgalaan lacagtii koobaad waxaan ugu deeqay midowga Yurub oo lacag 15 milyan oo euro ah waxaana mar labaad ku xigtay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF oo ilaa 10 milyan ee bad US dollars ama milyan dollar ku inoogu deeqay mashaariicdaas waqti dheer bay qaateen waxa fulinaysa hay'adda UN Habitat oo implementing ka waxaana consultancy ka ama mashruuca ilaalinaysa shirkad Jarmal ah oo Fitchner ah oo shirkadaha adduunka ugu waaweyn ee biyaha ka shaqeeya mashruucaas wuxuu leeyahay steering committee ama steering guddi hagta oo ka kooban 7 xubnood ka socda dawladda Soomaaliland iyo 3 deeq bixiye 3 bilood mar bay kulmaan waxay jeegarayaan maxaa socda maxaa qaldamay maxaa say tahay mustaqbalka maxaynu qabanaa hawshu say tahay say u socotaa waa mashruuc aad dhinacyada looga taagan yahay oo mar kasta la xisaabtankeeda aad la isku xisaabtamo ilaa madaxweyne wasiir qorsheyn wasiir biyo kulligeed deeq bixiyaashu waxa kale oo jira iyaguna shir aan bil kasta la galo oo laga wada hadlo mashruuc cusub socda oo la monthly progress meeting kaasna insha Allah isaguna si wanaagsan ugu socda marka mashruucaasi de marka la soo koobo componentskiisa ama qaybihii ka koobnaa badidoodu way dhamaadeen waxa kamid ah ceelashii la qoday way dhamaadeen si fiican bay u dhamaadeen dhismayaashii laga dubisay way dhamaadeen pipeline-kii horaad laga soo qaaday biyaha geedeble ku soo xidhay kala bar buu dhamaaday pipeline-kii geedeble ka soo baxay Hargeysa soo gaaray kala bar wax ka badan buu dhamaaday dhammaan qalabkii looga baahnaa mashruuca way wada yimaadeen mashiinadu way yimaadeen beebku yimid fittingkii uu yimid marka mashruucu insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhameystirkiisa laakiin meel wanaagsan oo imika aad loogu farxo ayuu maraya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo dadweynaha caasimadda Hargeysa ku nool waxaan ka codsanaynaa muddo dheer bay soo samreeyeen biyo-la'aanta caasimadda Hargeysa inay imika ducadoon badiyaan in ilaahay mashruuca inuu hirgeliyo khadka lagu jira
calaykum salaam walaalado magacaa ku bilaabaya maxaa su-aalaad weydiinaysaa maaraya cabdirashiid xuseen cabdillahi walaal waxaan kasoo hadlayaa xaafadda calaamadaha haye cabdirashiid waxaan weydiinayaa maarayaha dee muddo dheer waa la yaqaanaa koonfurta iyo bariga magaalada hargeysa biyo-la-aan ayay aada loola ildaran yahay haye dee markaa inta biyihii hore ee maxaan ku rahdaye markii hore waqooyi magaalada kasoo gelayay inta biyo kale lagu xoojinayo mayna ka wanaagsaneyn in maalo kale loo helo si magaalada ay wuxuun u gaadhaan koonfurta iyo bariga oo kale iyo galbeedka oo kale tusaalahaan waa su-aal fiican walaal cabdirashiid waad mahadsan tahay waan ognahay xaafadaad ka hadlayso calaamaduhu waa xaafadaha hargeysa biyo-la-aanta farabadan taagan tahay bay ka mid tahay hargeysina uma kala qaybino anagu maamul ahaan waqooyi iyo koonfur iyo galbeed iyo bariya hargeysi way biyo-laadahay say u dhan tahay xaafado way helaan ka mida hargeysa iyadoo yacnihii degmooyinka o dhan ay ka kooban tahay laakiin biyo-la-aanta way ku kala fara badan tahay systemkaas waxaynu ognahay hargeysa halkii juquraafi ahaan ku taala meesha quraatee aynu ognahay in biyo rasmiga laga heli karaa waa waqooyiga hargeysa daraasado fara badan baa la sameeyey bari iyo galbeed iyo koonfur iyo meelo badan biyo kuma jiraan biyahan saradaynu xidhanna mooy laakiin biyihii hoose underground waterkii kuma jiraan geedeeble iyo horehaadlaya ilaa xumba weyne oo waqooyiga hargeysa ku wada xigay biyuhu inaga xigaan insha allah systemkan laga caban jiray ee dad fara badan ka caban jiray biyo la-aanta ah ama equal sida biyaha loo qaybiyo cabasho badan ka jiri jirtay waa farsamo xagga farsamada ah ee maaha wax yacnihii maamul iyo wax siyaasad ku shuqul leh mustaqbalka imika systemkan cusub aynu dejinay distribution systemka ama biyo qaybinta caasimadda hargeysa totally way ka duwan tahay systemkii hore loo cabayey waxaanu sameynaa degmooyinka hargeysa degmo kasta oo kamid ah sida tusaale ahaan degmada maxamuud haybe adiba kasoo hadlayso iskuulka la yidhaha almaktuum iskuul ee ku yaala manhal dabadiisa ayaa taangi weyn laga sameynayaa taangigaasa biyaha lagu soo bamgaranaya barkada shiinaha lagaga soo tuurayaa biyo barashar leh ayaa xaafadihii hoos lagu soo dadejinayaa axmed dhagax sidoo kale koodbuur sidoo kale gacan libax sidoo kale xaafad walba waxaan dooranay buurta ugu dheer ama meesha ugu wanaagsan leefal ahaanba taangi weyn laga sameynayaa mashruucaasoo iyagana inaga caawinayso labadan sanduuqa horumarinta somaliland iyo eu aan ahayn k f w bangiga horumarinta qabsan jarmalku isagoo inaga caawinayo distribution systemka oo iminka designka iyo b o qgiisa iyo wax walba iminka gabagaba ku jiraan oo haddaad wareysato meeshaan kaaga sheekeynay iskuulka almaktuum iskuul la yidhaahdo sarfey dhamaystiran baan ku sameynay ciidda nooceeda la ogaaday taangigu intuu la ekaanayo biyuhu qaadi karaa intay leeg tahay marka insha allah ilah waxaan ka rajeynaa mashruuca faceka labaad ee ah distribution systemka oo iminka hawshiisu taagan tahay final stagekii in yacnihii tartankii la bixiya qadaraaskii la bixiya ciddii dhisi lahayd baraagaha iyo dhuumaha marka hawshaasi dhacdo systemkii markii hore biyaha lagu cabi jiray cabashada badan ka taagneyd waa laga bixi doonaa waayo sababtoo ahayd chinesku uguma talagelin magaalada calton in la geliyo uguma talagelin suuqan dhexe weyne aadka u weynaaday inuu sidan ahaado waxa lagu talagalay magaalo kooban oon caasimad ahayn oo dad yaroo kooban ku nool yihiin in biyaha lagu talagalay laakiin imika caasimad bay noqotay waa sababtaan uga guurnay systemkii hore chineska oo nugu guurnay system cusub oo ah degmo kastoo hargeysa ku taala inuu line toosa oo aan la daloolin oo biyo aan laga qaadin oo toosi uu tago kadibna xaafadii biyo barashar la hesho biyihii dib lagu soo celiyo oo imika tusaalahaan dad calaamadaha deganta waad garan kartaa almaktuum iskuul aroorta haddaad tood fuusho ood buurta dusheeda fuusho xaafadda gebigeedu ama degmada badideedu hoos bay kaa xigaysaa waa sababtaan u dooranay meesha insha allah ilahay waxaan ku rajeynaa in ilahay nagu guuleeyo waad mahadsantahay hay su-aal kale wali ku jirta hay hallo hallo calaykum salaam walaal magacaaga adoo ku bilaabaya maxaa su-aalaad weydiinaysaa maraya magacaygu waa cabdiftaax naasir haye cabdiftaax oo ka soo hadlayaa degmada maxamed mooge maxamed mooge haye maxaa su-aalaad qabtaa waxaan su-aal qabaa markii degmada maxamed mooge ay cusbay 2000 kilo 99 biyaha waana cabi jifada meel walba u maraya haye waa maxay sababta keentay in waqti hore maraya 2016 ay biyo la-aanaan waa haysta xaafadii ila degmadii walaal waa sax waa su-aal fiican waad mahadsan tahay 2006 ama wixii ka horreeyey oo runtaa meelaha ka mida degmada yacnihii maxamed mooge way gaari jireen biyuhu waxaan isweydiinaynaa xilligaa biyaha hargeysa soo gaaray ee laga soo saaray geedeeble imise ahaayeen maanta imise yihiin xilligaa markay ugu badnaayeen waxaa lagu qiyaasaa 4,000 mitir cubic ilaa 5,000 mitir cubic in lasoo saari jiray maalintii maantana waxaa lasoo saaraa 9,000 mitir cubic iyadoo biyihii geedeeble lasoo kordhiyey ayay haddana degmadii halkii ay gaari jireen biyuhu kasoo gaabteen maxay sababtu tahay waxaad aada tusaale yaroo kooban kugu filan suuqa hoose caasimadda hargeysa waa taqaanaa intuu leegyahay inta fooqe ka dhisantay inta hoteele ku taala inta xamaame ku taala inta restaurane ku taala dhammaan fooqyada iyo restaurannada iyo hodheeladaasi waxay isticmaalaan biyihii xaafadda u tallaabi jiray waa sababtaan lahaa farsamadan iminka insha allah mustaqbalka aan u guurnay waxaanu ka guuraynaa in biyihii xaafadda lagu talagalay meel kale isticmaasho
marka dadkii ku noolaa ama suuqii dhexe ayaa biyo fara badan isticmaalay sababtaa dartood baa soo koobtay biyihii ka tallaabiyay dooxa marka insha allah dee waynu ognahay way bilaadahay xaafadaasi ama degmadaasiba maxamed mooge insha allah waxaan rajeynayaa taangaa weyn inaan ka sameynaa sharxaya imika su-aashii ka horeysay marka la dhiso insha allah hawsheedu dhammaantood waad mahadsantahay waxaan ka codsanayaa qof kasta oo maareeyaha su-aal soo weydiinaya maadaama magaalada hargeysa ay biyo laadahay islamarkaana haatan lagu guda jiro xalkii loo raadinaya biyaha bal qof kastaaba isku dayo in su-aal ku saabsan mashruucan biyo ballaadhinta uu faahfaahin dheeraada uu kasii weydiiyo maadaama magaalada hargeysa maanta laisla wada qarsaynaya biyolaad islamarkaana imika lagu guda jiro si loo balaanin lahaa waxaan ka codsanayaa mar kale in lagu koobnaado mashruucan biyo ballaadhinta qof kastaaba soo faahfaahin dheeraada uu uga helo xilligay soo gaarayaan wuxuu ku saabsan yahay ujeedada mar walba laga leeyahay هيا محا سؤالك عليكم السلام والله سيفي عمان كون مغليا مقعاقا إيا هالك ديقلا سؤال ليسو waxaan ka hadlayaa xaafada New Hargeysa New Hargeysa magacaygu waa Faadma Cabdillaahi Aadan Faadma maxaa su'aal qabtaa waxaan doonayaa biyaha waxa loogu ballaarinaayay waxaan doonayaa gobolada Soomaaliya qaar baan wakaalada biyaha ka shaqeyn dadka horeeru dhintaa waxa weeye biyaha khalaariya kuwa macaan aynu laba kala saarno ma waxaad ka hadlaysaa Faadma magaalada Hargeysa mise waxaad ka hadlaysaa gobolada kale gobolada Soomaaliya wakaalada biyood bay leeyihiin maareeyahana waa wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa kaliya to ayuu hayaa wixii su'aalaha ku saabsan gudaha magaalada Hargeysa ee wakaalada biyaha ayay su'aashaadu furantaada weydiin kartaa aad baad mahadsan tahay Faaduma waxay ka hadlaysaa gobolada dalka oo dhan maareeyahu Ibrahim Siyaad waa magaalada Hargeysa gudaheeda balse waxa la soo weydiin doonaa maareeyaasha kale ee goboladaasi kale dalka ayaguna wakaaladooda biyaha maamula balse wixii su'aalaha magaalada Hargeysa ku saabsan iyo mashruuca mar walba qofkii su'aashaasi qaba waa soo dhaweynaya bal mar kale maareeyaha aanu si faa'iideysto intaanay dadku su'aalaha aanay soo badanin maraya mashruucan biyo ballaadhintu kulli waa hawl badan oo adag oo dhinacyo badan buu taabanaya dhinacii dhaqaalaha hadday noqoto iyo dhinacii hadday noqoto shaqaaleysiintaba faa'iideynta leeg baslada way ka helayaan bulshada magaaladan ku dhaqan Hargeysa wal faa'iido horta ugu weyn ay ka helayaan waa biyaha mustaqbalka marka mashruuca amaadina soo gaaraya oo biyo aad u farbadana oo imka insha Allah haduu Ilaahay noo dhameeyo san rajada tahay ku dhamaado imka 9 milyan oo litir baa maalintii soo gaaray Hargeysa waxaan rajaynaa marka mashruucu dhamaado 20,000 ilaa 40,000 milyan oo litir inay soo gaaraan hadii si kale loo dhigan 9,000 mitir kuubik mashruucu markuu dhamaado 40,000 mitir kuubik inay soo gaaraan taas waxa gad faa'iidada ugu weyn aynu rajeynaa mashruuca inuu noo horseedo qodobka labaad shaqo abuur badan buu sameeyay mashruucu intaas oo qof ka shaqeeya reer Soomaaliland hadda aroortii tagto meelaha mashaariic ka socdaan ee ama horahaad ha noqoto ama geedebel ha noqoto ama Hargeysa agteeda ha noqoto dad far badan oo aad u far badan oo reer Soomaaliland ayaa ka shaqeeya tiro kooban baa jirto oo ka shaqeyso engineer-raho qualified oo aan reer Soomaaliland ahayn ama ha noqdaan wadamada reer galbeedka ka soo jeedaan ama dalalka kale aan jaarkana ka soo jeedaan marka qodobka labaadna waa shaqo abuurka waxaad garan kartaa beebka markii la soo reeyay tusaale ahaan 500 container wax ku dhidhoba oo beeba laga soo raray China iyo Talyaaniga gawaadidka quraatay ka shaqo helay balbala ilaa Hargeysa soo daabulay 500 gaari ayaa shaqo ka helay oo daabulkiisa ka soo qayb qaatay shaqo far badan oo ama shaqaale hoosaad ha noqoto ama shaqaale sare ha noqoto ama deegaan ha noqoto shaqo abuur far badan buu sameeyay marka hadda waa mashruuc weyn faa'iidadiisu badan tahay ama xagga shaqo abuur noqoto maxaa qorshe waa marka bal si loo qaybin lahaa biyaha caasimada wala qorshaha wuxuu yahay mashruuc laba qaybood buu qaybsamaa qaybta koobaad phase-ka koobaad waa mashruuca imika EU-da iyo SDF iska kaashadeen phase-kiisa koobaad wuxuu yahay in kaam cusub oo geedel laga dhiso pipeline-ka la soo dhigo horahaad ceelashadii lagu soo xidho biyihiisa Hargeysa ku soo gaaraan phase-ka labaadna wuxuu yahay in biyaha Hargeysa soo gaaray degmooyinka Hargeysa loo qaybiyo way Hargeysa waxaan la soconaa waxay ku taalaa goob buuraleeya way kala sareysaa xaafado meel goday ku yaalaan xaafado meel sare ku yaalaan si biyo barasha la xaafado walba hesho waxaan ku talagalay waxa la sameeyay design iyo biyo ku yibaan gacanta ku hayna shirkad Sharmal hay wado oo isaga maalgelisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland kaasna wuxuu yahay in xaafado loo Hargeysa ku taala oo tusaalahan 4 degme ee Hargeysa ee Maxamuud Haybe iyo Axmed Dhagax iyo Gacan Libaax iyo Koodbuur mid walba taangi weyn oo gaar ah u leeyahay loo sameeyo si biri barasha loo helaan markii nimaadno wakaalada biyaha Hargeysa sidee bay u hanan kartaa inuu nidaamkan sii shaqeeyo marka uu mashruucan dhamaado
walaal waa su-aal muhiima. waxaynu ognahay dee mashruucaas markuu dhammaado waa mashruuc xaddigii biyaha aada u kordhaya. iminka waxaanu ku wadnaa reform ama inaanu awoodii wakaalada lafteeda xagga infrastructure in la dhiso maha wakaalada lafteeda la dhiso. waxaad ogtahay in madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland beri dhowtole uu magacaabay guddi board of directors ah. guddigaasoo ka kooban acyaantii ama dadkii indheergaadka ahaa, ganacsato lahaa, culimo lahaa, dumarka lahaa, dee dad aada u wanaagsan oo waaweyn ku jiraan reer Hargeysa. waxay ka mid tahay in capacity wakaalada la dhiso si ay wakaaladu u hanato. waxaan isku dayaynaa insha Allah waxaan wadnaa inaan shaqaalihii aqoon farbadan kordhino. shaqaalaha ilaa demaaraya ha noqoto, agaasimayaal ha noqoto, sectionska ku jooga ha noqotay, trainna farbadan baan dibadda u qaadnay. iminka tusaale ahaan qaar baan UK tagay, qaar baan South Africa u qaadnay, Namibia qaar tageen, Kenya u geynay, Uganda tageen. waxaas dhan waxaan u wadnaa si mashruuca inta leeg markuu dhamaado si ay u hantaan oo aan mashruuci yani cidna naga dhicin mar hadii la inoo caawiyo dadka deeq bixiyaashu inoo caawiyeen aynu si fiican u haano in wakaalada lafteeda awoodeeda dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba la dhiso. insha Allah waxaan ka rajeynayaa ilaahayna in hawshan ugu guulay. waxaan isleenahay awood ahaan wakaalada biyaha Hargeysa way hanan kartaa maamul ahaan iyo aqoon ahaan iyo farsamo ahaanba in mashruucaas markuu dhamaado biyaha inta leeg rangareyso. khadka telefoonka. halo assalaamu calaykum. qofkaas nasiib uu heli waayay inuu laga qayb qaato barnaamijka. waxaynu imika warqabnaa in magaaladana Hargeysa inta biyaha hesha habeenba xaafad soo dhacdo oo habeenba xaafad loo sii daayo. markuu mashruucan dhamaado ma laga gudbaya taas oo qofku si joogta biyo mu helaya. walaal kulli Hargeysa waxaan isleeyahay feeskan koobaad si fiican baa looga gudbayaa. waxaan heli doonaa biyo joogta ah. haddana waxaynu u baahannahay mar kasta in biyihii mashaariicda cusub oo kale la sameeyo. waxaanu iminka mustaqbalkeegu yahay in dhaam weyn oo Butuj dhaam la yiraahdo la xidho mustaqbalka si biyo aad u fara badan Hargeysa soo galaan. way Hargeysana way koraysaa mar kasta koritaanka qof kasta oo caaw ku dhasho ilmaha biyihiisa waa in lagu soo kordhiyaa. marka insha Allah feeskan koobaad waan ka bixi doonaa qaybintan biyaha la qaybinayo xilliga adag islaamu soo jeedeen hooyooyin fara badan soo jeedaan xilli adag inay biyaha dhaansadaan insha Allah. laakiin waxaan u baahanay mar kasta inaan halka laga hadlino loo dhan mashruuc waa inoo dhamaaday in mar kasta halka laga sii wado waa tan insha Allah qorshaheeda imika gacanta ku haynaa oo mashruuca kadib aan raahno maxaa mustaqbalkeena xigi doona mashruuca markuu dhamaado. halo assalaamu calaykum. walaal magacaaga adoo ku bilaabay halka digala soo hadlayso. haye Saciid maxaa su'aal weydiinaysaa maaraya. waxaan weydiinay oo aaday biyo talaalada xagga laga soo xagga talaalada ka soo socday. haye halkay ku dambeeyeen. waayahay. walaalood mahadsan tahay inkastoo barnaamijkani uu ku koobnaayo quraata mashruuca biyo bilaarinta caasimadda Hargeysa EU iyo SDF iska kaashadeen. laakiin mashruucaasna wuxuu ka mid yahay mashaariicda Hargeysa ay sugayso. waanu la socnaa mashruuca ceelashiisa waa la qoday meesha xunba weyn la yiraahdo laga qoday. waxaynu harsanaa feestugiisa oo ahaa pipeline-kii iyo baraagihii. insha Allah weegan aynu ku jirnay laftiisa waxa hawshaas mar baan hawsha yani cidii maalgelinaysa ee hadda bixiyay Khalifa Foundation ahay timid. marka insha Allah isagana waxaan rajeynayaa inuu isaguna si degdeg ah inuu bilaabmo. waad mahadsantahay. halo assalaamu calaykum. walaal magacaaga ku bilaabaya iyo halka joogto maxaa su'aal maaraya weydiinaysaa. assalaamu calaykum. halo assalaamu calaykum. waan ku maqlayaa waan si fiican. walaal waxaan weydiinayaa waxa ka soo hadlay magacayga Ibrahim Jaamac waxa ka soo hadlaya xaafadda Maxamed Haybe. haye Ibrahim maxaa su'aalaad qabtaa. wax su'aal waxa wadaa iyo mashruucan biyo gelinta dawladda in maqlaynaa marka sanawaad oo sanadood buu ahaa. haye marka waxaan ku sheegayaa waxaan sidii baabuurka oo kale wax iska leeyahay dhulkeeda dhinaca ka buuxdo baabuurka ka buuxdo wala soo saaray ilaa tiyaabo iyo sheer badan ku malaynaa lagu qoradeeda Maxamed Haybe ayaa gadagani. haye marka balmaariyo waxaan weydiinaa boorta waxaan wax xaqiiqad u leeyahay boorta soo baabuurka qaabsan ilaa 10 sanadood soo raafay 100 sanadood wala soo saaray aan balamidi. waa si fiican su'aal fiican walaal. walaal mahadsantahay Ibrahim maaha mashruucan mashruuc yani laga sheekeeyo oo mashruuc xaqiiqo oo socda. waxaan jeclahay klibkii markuu mashruuc bilaabay nala daawatay waxaan jeclaan lahaa hadda chance aysan aan kugu casuuno mashruuc meel ka socdo. mashruuca haddaad aragto inta iskaafeetar iyo inta cagaf ka shaqeynaysa inta buuraha la jafayo ma tiraahdan yani sidaas mashruuc waa mashruuc infrastructure uu ka duwan yahay mashaariicda ay naqaano dhan. waa mashruuc biyood haddaad waraysato waqtigii Chinese-ku mashruuca wadeen intuu qaatay hawshu soo socotay meelaha qaarkood baa intaasoo afar iskaafeetar inta la soo keeno check hamar lagu wada xidho ay kulligood maalintii jiraan wax yar kooban buurta dusheeda oo kale. marka mashruuc aad u adag maaha mashruuc la leeyahay waa hadalun mashruuc componentskiisa ama waxyaalo ku koobnaa bidoodu way dhamaadeen.
laakiin insha Allah waxaan rajeynaa waxaan kugu soo casuumi lahaa hadaad chance hayso inaad na raacdo maalin nala soo eegto hawshaas waad mahadsantahay. asalaamu calaykum wal magacaaga adoo ku bilaabaya halkaad kala soo hadlayso maxaad si aad su-aal weydiinaysaa maareeya walaal codkaaga salo yaro qaad halo walaal iska gaabi tv-ga telefoonka oo keliya taygala soco waan ku maqlayaa si fiican kor yaro qaad hadalkaaga walaalo codkaaga aad u naaquso su-aashaadaad weydiinayso si toosa ili uma fahmayo adoo raaliya qofka ku xiga way suurtageli weyda qofkaasi inuu si fiican inoo maqlo su-aalaha ugu badan ee maaliya lana weydiinaya waxa weeye goorma dadku way degdegsanayaan muddada uu mashruucan soconayo se hadal inta badan su-aalahooda ku badan goorma isleedaadu si toosa loo daafuraya markaad adigu walaaltaa dhowr jeer horena waan ka jawaabay dadku dee samirka ayaa horta ugu muhiimsan dee waan u garaabayaa qof biyaalo magaalo joogo muddo dhan laleeyahay mashruuc baa socda waa dawda inuu cawdo laakiin waxaa qofku inuu ku darsada ay tahay shicibka reer Hargeysa ay ku darsadaan in mashruuc uu ka duwan yahay mashaariicda aynu naqaano ama haddii ay noqoto meel la dhisayo aad buu uga duwan yahay waa mashruuc yacnihii aad u adag samayntiisu baabiyo waa mustaqbal mashruuc la doonayo boqolka sano soo socda beebkaas inuu Hargeysa anfaco waa mashruuc la ilaalinayo pressurekiisa iyo sida loo dhigayo levelkiisa la ilaalinayo marka insha Allah rajadeedu waxay tahay ama qorshuhu yahay in 2016 dabayaaqadiisa December January in mashruucaas dhamaado haddii aan wax isbedel jirin laakiin qorshahaygu waa saas weeyaan. halo halo waa magacaaga saddexan iyo halkaad igala soo hadlayso maxaa su-aalaad maareeyaa weydiinaysaa magacaygu horta waa Maxamed Yuusuf maareeyaa waxaan doonaya inaan weydiiyo mashruucan iyo ballaarinta magaalada Hargeysa ay سوشيال ميديا وقتها مشروع هو تجربي كافيتي كتير يبقى بحية سام قاعد نور كايتان هي يمكن بيها واحد الشيء إنه مشروع عن ولا ما يبغى تكون تسويه تونكا هي marka maxaa su-aalaad qabtaad weydiinaysaa mareeya لأنه waxa weeye مشروع xilligan loogu talagalay waxa xaqiiqo inuu dhaafayo ama extension uu baahanayo هي marka maxaa banaana intii la qorsheeyay mid dib uga dhici karaa mise on time buu ku imanaya mashruuc aad buu maasanta dawladda waxaan jecelahay adaaba yani jawaabtiina siiyay mashruucaas qorshihiisu wuxuu yahay inuu January xariga laga jaro dee ilaahay be waxaan nahay bilaadan qorshe la inooga baahan yahay laakiin talada Allah inoo haya annaga mashruucaas wuxuu 2017 January inuu dhamaado dee ilaahay qorshihiisuna meeshiisa u yaala marka insha Allah waxaan leenahay rajada inuu wanaajisano xilliga aynu ku talagalay inuu mashruucaas dhamaanayo waa su-aasha ugu dambeysay maadaama gunti iyo gabagabadii barnaamijka aan kusii jirno halo calaykum salaam walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halka aad degan tahay maxaad maareeyaa su-aal weydiinaysaa waa cabdillaahi cabdillaahi haye cabdi halkee degan tahay waxaan deganahay waraabo salaan haye barnaamijka ugu yara dhaafay soo ma maareeyaha su-aal weydiinaya maareeyaha wakaalada biyaha ayaa fadhiya maxaa su-aalaad weydiinaysaa ee ku saabsan mashruuca biyo ballaarinta wakaalada biyaha mashruucyo badan baanu ku maqalnaa mashruucyadaasi talow dee niyo wax aanu ku haynaana ma jirto aan kaa yaro dhex galo cabdillaahi ya walaalow mashruucaynu ku hadlaynaa waa kii biyo ballaarinta maxaa su-aala mashruuca biyo ballaarintaad ka qabtaa ها وان كذا مركا وان هو تشيو لا فيس أنا فيس كنت وين نيو وأنا ما قبلها كنت بيروت فيس كاتي ككوبات su-aashaas horena maariyo uga jawaabay adigoo raaliya mar labaadna uu kugu celin doonaa walaal mashruucan aynu programka aynu caawa u fadhinay wuxuu ku salaysnaa mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa geedeeble iyo hore hadlay laakiin mashruucaasi xunba weyn mashruuc jiro ahaa muddo socday fayskiisii koowaad waa dhamaado ceelashaha fayskii labaadna insha Allah waxaan rajeenaa inuu bilaabo mahadsantahay
waqtigoo gaaban awgii waxaan aad iyo aad uga raali gelinayaa guud ahaanba intii isku dayday inay maarayaha su-aal weydiisay ee waqtigu saamixi waayay nagala qayb qaataan amase khadka telefoonka uu mashquul ka noqday maadaama dadka soo garaacaya barnaamijka ay doonaya su-aalaha inay weydiiyaan maarayaha aad u tira badnaayeen mar kalena waxaanu si aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maarayaha wakaalada biyaha ee Hargeysa Ibrahim Siyaad Yooni sidoo waqtigiisa qaaliga uu noogu huray inuu nagala qayb qaato barnaamijkan waxaana barnaamijkan soo diyaariyay xafiiska xiriirka mashaariicda ee sanduuqa horumarinta ee Somaliland ee wasaaradda qorsheynta qaranka waxaana aan ku soo qaadanaynay mashruuca biyo ballaadhinta ee magaalada Hargeysa oo ay kaashanayaan SDF iyo waliba midowga Yurub su'aasha gabagabada aan maarayaan siinaya waxa way guntiga gabagabada adoo minute ku soo koobiya maaray maxad guud ahaan bulshooyinka Soomaaliland ka tagaysa bulshooyinka caasimada Hargeysa waxaan ku u soo jeedinayaa horta waxaan uga mahadnaqayaa samirka ay u yeesheen mashaariicda socda waxa ka muuqatay su'aalo far badan time-ka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay mashruuca inagu guuleeyo dadweynaha caasimada ku nool waxaan u soo jeedinayaa in badan baynu Hargeysa bilayd sababtii ay u bilaydna waan soo sheegnay imika meel wanaagsan baynu maraynaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay hawsha inagu guuleeyo dadweynahana waxaan ka codsanaa hawsha ducadeeda iyo inay xagga rajada wanaageeda in raaciyaan qowlka wanaagsan dad islaameen nahay waxaan ognahay qowlka wanaagsan wanaagiisu yahay wax walba lama sharaysto xagga wanaaga laga eega mashruuc si fiican buu socdaa hadii jeer waa la boobay wad TV-yada ka daawataan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay nagu guuleeyo idinkan waxaan idinka rajaynayaa inaad meesha ducada qof kastaaba qofkii tala iyo tusaale hayaan waan soo dhawaynaa xafiisku uu furan yahay haday engineering tahay iyo haday si kale tahay qofkii aan tala hayna waxaan ka codsanaa inuu ducada nala garab joogo aadna wad mahadsantiin guud ahaan dalkiisa waxay noogu dhamaaday waraysigaas aanu la yeelanay maarayaha wakaalada biyaha Hargeysa bahda Cable TV waxa barnaamijka la qayb qaadanayay Maxamed Axmed Xuseen gaabana dhinaca kamaradaha iyo telefoonka weynoo qaabilsanaa Cabdiraxmaan Axmed Gaashaanle oo isaguna guud ahaanba live-kaas sidii tooska u taawanaysan hagayay iyo waliba khadarsheen oo isaguna dhinaca baahinta inoo fadhiyaan oo kuraasa waxa soo kale aad ugu mahadnaqaya deeq oo isaguna ka socda xafiiska xiriirka mashaariicda ee sanduuqa horumarinta Somaliland isaguna barnaamijkani qayb nagala qayb qaatay maarayaha isagoo si weyn ugu mahadnaqayo dhamaantood inta barnaamijka xiga dib u kulmi doono waxaan taga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh